بسم الله الرحمن الرحيم. هل كانوا ودنسوم تي في برنامج كنا دفاع حقوق دا بلاه الله يبسعي ددك اللي قتر بدن هاي ما انت وحا وكسب سن هاي حق وحبرشدا اما علمك وحا ولي هاي اساس لو باهن هاي ان لا الاليو oo waalidiintu ay ilaaliyaan si caruurtooda ay ugu hanuuniyaan. Tacliinta waxa weeye waa saldhigga asaasiga ah ee mustaqbalka ummadaha adduunka oo dhan. Ummad horumarta ma jirto waxbarasho la'aan. Waxbarashada asaaskeeda tilaabada ugu horeysa waxa weeye oo loo baahan yahay in la qaado meesha ay ka bilaabato waxbarashada ama cilmiga oo ah xanaanada dugsiga hoose dugsiga dhexe ilaa dugsiga sare. maxaa la dugsiga sare ardaygu marka uu ka baxo oo uu qaato waxbarashada dugsiga sare waxyaabo badan ayuu ogaanaya. waxa u sahlanaysa in uu waxbarashada sare uu aado oo ku saabsan xagga jaamacadda asaaskeeduna waxa weeye waa waxbarashada dugsiga sare. marka waxa jira wax tacliinta ka muhiimsan. waa maxay waxa tacliinta ka muhiimsan? tacliinta waxa ka muhiimsan waxa weeye waa akhlaaqda. maxaa yeelay wasaaradda waxbarashada horteeda waxaa ku qoran wasaaratu at-tarbiya wat-tacliim. maxay tahay at-tarbiya? at-tarbiya waxa weeye al-akhlaaq wal-adab was-suluk. waxa weeye waa adabta iyo akhlaaqda iyo karaamada iyo ciziga qofka bani aadamka uu iska leeyahay oo loo baahan yahay qofkaas inuu ilaashado. marka la helo tarbiya akhlaaq marka la helo ayaa tacliin la heli kara. akhlaaqduna waxay ka bilaabataa waxa weeye waa guriga aabihii hooyadu ay degan yihiin oo caruurta lagu tarbiyeeyo akhlaaqda loona tilmaamo jidka wanaagsan oo ay marahayaan. maxaa yeelay haddii aad tahay professor PhD holder ama aad tahay professor cathedral oo aqoontaadu ay aad u sarreyso cilmi kasta lahow haddii aad akhlaaq lahayn cilmigaagu wax faa'iido u leeyahay ma jiro. marka cilmiga maxaa ka muhiimsan? akhlaaqda ka muhiimsan. akhlaaq haddaad lahayn cilmiga aad baratay wuxuu noqonayaa hal bacad lagu lisay wax faa'iido u leeyahay ma jiro. laakiin cilmiga waxaa ka horeeya akhlaaqda. akhlaaqduna waa nolosha asaasiga oo qofka bani aadamka ah looga baahan yahay in uu dareemo qalbigiisa iyo maskaxdiisana ay ku jirto. marka barnaamijkana maanta ee ku saabsan xagga waxbarashada ama cilmiga ku saabsan waxa weeye waa baaq ku wajahan beelaha la haybsociyo dadka laga tira badan yahay iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan guud ahaan in ay qaataan waqtigana in qofka bani aadamka uu ka faa'iideysto. maxaa la waxa la yiraahdaa waqtiga haddii adigu aadan goyn isaga ku goynahaya. waqtigu waa seef oo kale haddii adigu aadan goyn isaga ku goynaya. الوقت كسيف إن لم تقضعه يقضعك. وسيدي سيفتي وكله هدي أدوغ آدقوين إسيغا كوغويني. وقتقون أدبو قالئوية. وقتقو وحاوية والدقيقة إيا مينيتس نولشادو. تاسع مهمة إناد فهمتين. مركز سيدا درادات يعني دلين يرادا بيلها الله يبسعو يددك اللي قتر بدن يهي وحلو باهن يهي waqtigooda in ay ka faa'iideystaan gaar ahaan xagga cilmiga.
kabahaaga tolo birtaada tumo malaygaaga dabo geelaaga raaco laakiin waa inaad heshaa waqti aad wax baratid waxaa kugu filnaan karaa waxbarashadaada 1 saac markaad soo shaqaysatid oo waxbarasho ah oo ilmahaagana gurigaaga aad wax ku bartid waxaana ugu muhiimsan waxa weeye waa tacliimta asaasiga ah ee marxaladaha waxbarashada marka sidaa daraadeed cilmiga waxa weeye waa in la raadiyaa cilmiga waxa la bartaa يعني من المهدي إلى اللحدي من المهدي وحوية وسريرت عنقو مركو دشو لغو ريدو إلى المهدي إلا نحشكا قفكو مركو دينتو لغو ريدو إلا هلهاس مرحلة انت أولا حيث من المهدي إلى اللحدي عنقو مركو دشو سريرت لغو ريدو إلا نحشكا لغو ريدو انت أولا حيث انتاس إنو قفكو أوبرتو على كل حال مركا waxbarashada waxa weeye in qofku iyo waalidku ay ilmahooda ay ku baraarujiyaan laga bilaabo min almahdi ila al-lahdi sariirta cunugu markuu dhashay lagu rido ilaa naxashka lagu rido qofka marka uu dhinto marka على كل حال taas waxay asaasi u tahay oo la boorinaya la dhirigelinaya xagga cilmiga iyo waxbarashada cilmiga waa inaad raadisaa meel kasta oo aad ka helaysid waa inaad raadisaa okay marka cilmiga la'aantiis wax socon kara ma jiraan marka sidaas daraadeed yani qofku hadduu cilmi barto oo ilaahay aqoon u siiyo ama cilmi dugsi sare ilaa jaamacad ilaa ma garanaysaa PhD holder cilmi hadduu barto qofku waa inuu cilmigiisa ku intifaaca man tacallama qofka wax barta ولن ينتفع بعلمه علمgiisana aan ku intifaacin lam yazdadahu Allah illa jahlan ilaahay jaahilnimo maana wax kale uma siyaadiyo qofka bani aadamka waxa uu bartay waa in uu ku intifaaca waa in uu ku shaqaysta marka sidaas daraadeed waxaan ku boorinaynaa dhalinyarada beelaha la haybsocay dadka laga tira badan yahay in cilmiga ay ka dhigtaan saldhigooda asaasiga ah maxaa la waajidka kaliya oo horumarka iyo barwaaqada ay ku gaari karaan marka waxaanu maanta tusaale u soo qaadanaynaa nin ayaa abiis baa dhintay isagoo dugsi sare waxbarashadiisa wada odagii markuu dhintay على كل حال ciddadiisa waxbartay ilaa dugsi sare ayay ka saartay dugsigii sare markay ka saartay ninkaas ciddadii waa dhimatay kadib shaqo raadsaday meel shirkada oo textile la yiraahdo oo shirkadaha ma garanaysa dharka soo saara ayuu shaqo ka helay ninkaasu shirkadaas ayuu wuxuu u shaqaynayay 25 sano waa uu ka guursaday 3 cunug buu dhalay lacagta uu shaqeeyo waxna meel buu dhigtaa waxna caruurtiisu wax ku bara iyo wax uu u baahan yihiin oo kale ayuu ku daboola marka ninkan wuxuu ahaa nin aad wax u akhriya shaqada markuu ka baxo wuxuu tagaa meelaha library-yaasha oo bugaagta journaladu iibsada nin aad wax u akhrin jira ayuu ahaa maalin maalmaha ka mid ah ayuu ninkaas waxa uu soo galay meel library oo bugaagta la dhigo wax lagu akhristo library-ga isaga oo marhaya ayuu wuxuu arkay book buu arkay
marka buugga indhaha markuu ku dhuftay buugga waxaa ku qoran what will you do the coming 50 years maxaad qaban doontaa kontonka sano oo soo socda what will you do the coming 50 years kontonka sano soo socda maxaad qaban doontaa markaasna isaguna wuxuu jiraa konton sano markaas buuggii wuu dhaafay waa uu soo laabtay buuggiibu haddana si fiican u fiiriyey marka wuu qoslay wuxuu yidhi buuggan waxaa ku qoran maxaad qaban doontaa kontonka sano soo socda marka wuxuu yidhi aniguna konton jir baa nahay marka wuxuu yidhi ka soco haddana wuu soo laabtay buuggii ayuu soo qaaday ilaa 280 baajina ah wuu fiiriyey wuxuu go'aan ku gaaray inuu buuggii akhriyo buuggii buu soo qaaday reception-ku tagay buuggii wuu iibsaday library uu ka iibsaday wuu qaatay marka meel waxaa jirta jardiina ayaa jirta marka meesha jardiinka ah waa jardiin weyn cafeteria ku taala meel kafe laga cabo meel cunto laga cuno waana jardiin geeda waaweyn loo aad u ballaaran waxaa la yiraahdaa Shakespeare panorama waa meel panoramaheeda iyo dhirteeda iyo ubaxa iyo aad ala kulli xal marka shaqada markuu ka soo baxo geed weyn hoostiisa ayuu fariistaa marka buugu akhriya buugaas ayuu marka wuxuu akhrinayay 25 maalmood ayuu akhrinayay maalin walba 4 page 5 page buu akhrinay ala kulli xal buugi markuu akhriyay isaga oo buugi akhrinaya oo geed hoostiis fadhiya ayaa nin engineer ayaa wuxuu soo maray agtiisa ninka engineerka ahaa wuxuu arkay ninkan geedka hoostiisa fadhiya marka buugi ayuu wuxuu ku dhuftay indhaha buugga waxaa ku qoran what will you do the coming 50 years maxaad qaban doontaa kontonka sano soo socda marka ninkii qosol buu la dhacay ninkii buu fiiriyey bidaarta iyo madaxiisa oo ciro leh iyo shaarubadiisa iyo garkii oo cadaaday oo ciro miirana qosol buu la dhacay markii ninkii uu qoslay ayaa ninkii buugga akhrinayay ayaa madaxa kor u qaaday marka ninkii buu fiiriyey oo qoslayo sii socda wuu u yeeray wuxuu yiri excuse me can you come can I talk to you please kaalay buu yiri ma kula hadli karaa haa buu yiri wuu soo laabtay ninka engineerka ahaa marka wuxuu yiri maxaa ku qoslaysaa what are you laughing marka wuxuu yiri waa kula yaabanahay waxaan kula yaabanahay adiga oo nin da oo cumriga joogtid oo bidaarta leh oo madaxaagana magaranaysaa yani ciradu sida u hoolatay garkaaga iyo shaarubadaadu san ay ciro ay u yihiin maxaad ka akhrinaysaa buugga ay ku qoran tahay maxaad qaban doontaa kontonka sano soo socda maxaad ka akhrinaysaa ninkii marka buugga watay wuu qoslay markaas wuxuu yiri ma garanaysaa yani ma kugu cazumi karaa koob kafeeya markaas wuxuu yiri haa waxba kama qabo waa israaceen meel cafeteria ayay fariisteen cabitaan bay dalbadeen 2 koobajina ayay dalbadeen ala kulli xal marka wuxuu yiri niyahow ninkii buugga watay wuxuu ku yiri niyahow waxaan kuu sheegayaa buuggan hadda waxaan akhriyay baajkii u dambeysay ayaan akhriyay waa 280 baajino baajkii u dambeeyay ayaan akhriyay marka maadaama baajkii u dambeeyay buuggan akhriyay hadda aniga go'aan baan gaaray waxaanan go'aan ku gaaray in aan jaamacad galo anoo cumriga jooga oo konton jir ah buuggan waxa aan ka faa'iideystay ninka engineerka ahaa marka wuu qoslay nin dalxiis oo meesha iska marayo ahaa wuu qoslay marka wuxuu yiri taas ma suuragelayso على كل حال قوان كاسان قاري بوير نينكا مركا شركة تكستايل او داركا اي او شقية
على كل حال نينكا شقدي مركو كبحو هل بالكبعد نينكاسو waxa uu go'aan ku gaaray in shahaadadiisii dugsiga sare uu soo qaato jaamacadda uu ka register gareeyo una bilaabo faculty of medicine kulliyadda caafimaadka inuu bilaabo ayuu go'aansaday isagoo konton jir ah ala kulli xaal ninkan 5 sano ayuu wuxuu dhiganaya kulliyadda caafimaadka oo uu ka qalin jabiyay waliba darajo fiican uu kaga qalin jabiyay markaas isagoo konton jira hadda waxa way waa 55 sano oo uu ka qalin jabiyay kulliyadda caafimaadka shaqo raadsaday wuxuu shaqo ka helay meel isbitaal ah ayuu shaqo ka helay meesha isbitaalkeedu waxa la geeyay qaybta lafaha ayaa la geeyay oo qaybta lafaha iyo qalliinka orthopedic surgeries baa la geeyay qaybta lafaha iyo qalliinka wuxuu qaatay 2 sano oo specialist uu qaatay oo ah lafaha iyo qalliinka iyo xagga nerviska ayuu qaatay ala kulli xaal ninkii 2 sano markuu jaamacadda ka qalin jabiyay wuxuu qaatay xaflad weyn baa la qabtay wuxuu qaatay doctora orthopedics surgery doctor يعني تختار قلينك إلا فيها أي قاطي هل بالبوشقية بش مركو الشقية يعني اسبتالكي uguweyna meesha ee magaalada California ayaa waxa looga dhigay managerka guud ayaa looga dhigay waa ninka isbitaalka ugu sareeya ayaa loo dhiibay على كل حال ninkan markii jagadaas loo dhiibay ayuu maalin maalmaha kamida isagoo shaqada soo galay goor subax oo dadku ay leen ku jiraan leen dheer dadku ay ku jiraan ayuu wuxuu arkay nin soo gotay oo safka istaagila dhabarkiisuna sida u laaban yahay oo haddana ulku tukubahay gabadhii narsisku u yaray wuxuu yiri ninkaas soo gudbi buu yiri soo gudbi ninkaas ma garanaysaa da'da oo taagnaan la waa uu soo gudbiyay xafiiska uu kan xafiiska ugu geeyay marka wuxuu yiri niyahu hay yani sida lagu haya niyahu wuxuu yiri dhabarka la iga haya ma istaagi karo waxaan tagay buu yiri ma garanaysaa China aan tagay oo caafimaad aan u tagay waxba waa la iga qaban waayay waxaan tagay buu yiri Canada waxba waa la iga qaban waayay Australia aan tagay waxba la iga qaban Ingiriiska aan tagay Germany baan tagay ilaa 5 wadan baan tagay kala duwan waxba waa la iga qaban waayay marka tacbaan baan ahay hadda magaaladan aan deganahay ayaan ku soo laabtay marka niyahow waxaan rabaa in la idaaweeyo gabadhii narsiska ahayd buu u yaray wuxuu yiri ma garanaysaa waxaad geysaa qaybta ma garanaysaa ee isbitaalka ee qalliinka ninkii buu baaritaan ku sameeyay waa uu suuxiyay ala kulli xaal qalliin ayuu qaatay socday 7 saac 7 hours consecutive 7 saac socday ayuu qaatay oo waliba ma garanaysaa oo vertebralaha xagga dhabarka ya oo hawl culus uu ka qabtay ninkaas isbitaalkaas wuxuu ku jiray 8 bilood ayuu ku jiray markii dambe ninkii waa caafimaaday markuu caafimaaday waxa la yiri okay bilka bacdi ayaad ka baxaysaa isbitaalka la yiri bishii markay u dhamaatay ninkii tabella loo keeno halka xabadka ah oo ay ku qoran tahay pay the expenses of your medical bixi wax alla wixii kharash ku baxay daawadaada iyo isbitaalkaaga tabellaha marka meesha loo galiyay ala kulli xaal ninkii isbitaalku joogay
على كل نينك العقتي بو بحين واي العق ما هيستوير وحاول ما بحين كرو اسبتالك كما بحيسبه لي 1 ويك بو جوغي نينكي تختركها مانيجركي اسبتالك ayaa wuxuu ninka hal ay kana waa loo keenay faylkiisii buu soo saaray magaciisii buu yiri soo mateed hebel baanahay okay soo ninka saasa mateed injineerka waan ahay على كل حال واي العقد markuu wuxuu yiri wax alla wixii kharash aan haystay wadamadii aan tagayba iga baxdeen haddana dalkaygan ku soo laabtay isma bixin karo marka takhtarka wuxuu ku yiri waxaan ku weydiinayaa adiga hebel soo mateeta ma xasuusataa nin maalin ya Shakespeare panorama yani meeshaas magaraysa geedaha dhaadheer oo geed hoostiis fadhiya oo buug weyn akhrinayay markaas wuxuu yiri waa xasuustaa ma xasuusataa inuu ku yiri waa ku cazumaya kafee baan kugu cazumaya oo ku yiri buugan kontonka sano soo socota yani adigu qosashay oo atri kontonka sano soo socda maxaad qaban doontaa ninkii shock buu qaatay waa yaabay ma ninkii baa tahay buu yiri waa xasuustaa buu yiri waliba waxaan xasuustaa kubajina inta ay dirtay in ma garanaysaa dabcada ina bixiso anigu aan diido ana bixinay ninkii waa yaabay managerka isbitaalku marka waa qoslay على كل حال markuu qoslay ayuu wuxuu yiri okay maanta hadee waa caafimaad qabtaa dhulkaas oo dhan baad martay maanta dalkaaga ayaad ku soo laabatay waxa la wixii expenses oo kugu baxay oo dhan maanta waa afis isbitaalkana waa ka baxaysa ninka hadee injineerka waa yaabay wuxuu yiri niyahow يعني ما قرناyo waxaan kuugu abaal gudo على كل حال waxaan ku gabagabeynayna يعني qofka bani aadamka da kasta ayuu wax baran kara isagoo konton jira marka meeqa laga jooga ninkaas konton sano Somaadan garan ayuu ma garanaysaa mintaqan isagoo konton jira ayuu ma garanaysaa 5 sano wax barasho qaatay 2 sano wax barasho waa konton iyo 7 sano iyo manager laga dhigay konton iyo 8 sano marka konton iyo 8 sano ayuu isagoo manager ma garanaysaa u noqday oo waliba had ma garanaysaa ninkaas oo isbitaalka ya على كل حال marka waxaan ku baaqaynaa oo aan ugu baaqaynaa dhalinyarada beelaha la haybsicay dadka laga tira badan yahay iyo ummadda Soomaaliyeed cilmigu inuu sanda lahayn cilmigu ilaahay maskaxda kuma siinin ina iskaga ka xargagto oo ay maskaxdaada ku qallasho laakiin waa in laga faa'iideystaa waa inaad ogaataan cilmigana waxa ka horeeya akhlaaqda barnaamijkeena maanta intaas ayuu ku dhanyahay barnaamijka waxa soo diyaariyay anigu Dr. Abshir Warsame Jamac. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.